maalinta beri waxaan u ambabaxayaa Boston magaalada qaybteeda Cambridge gaar ahaan magaalada ay ku taalo Harvard University nasiib wanaag halkaas oo ay ka socoto lagu qabanayo workshop weyn oo conference camal ah oo lagaga hadlayo cilmi baarista Soomaaliyeed Somali Studies oo ah dib looga fikiro dib loo hubiyo موضوع سدا lagu arkay waxa jiray wanoognahay hore waxa uu jiray Somali Studies International Association SSIA fadhigiisa ugu dambeeyay sanadkii dhaweyd xagaagii hadda ina dhaafay bishii August lagu qabtay Finland kii ugu horeeyay 79 ahayd muqdisho markii lagu bilaabay waan joogay waan la bilaabay Somali Studies-kaas waxaan u produce garay waaga riwaayad dhan oo lagu xiray oo magaceeda afar fac la oran jiray xusuustaas ii geeya Toronto York University waa kaga qayb galay Columbus University Columbus Ohio waan kaga qayb galay laakiin waxbaan mar walba ku diidanaa ama dad badan ay dareemayeen hase yeeshee waxaasoo codkeedu kor u kacay kan baan uga jeedaa backgroundkiisa waxaan u malaynayaa qoraaladii ay shaacisay Safiya Caydiid gabadhaasi oo meelo badan kaga baaqday mawduucii la oranayo caddaan studies iyo kan Somali speak qofka Soomaaliga isagu ma hadli karaa iyo qoraalada caynkaas ayaa wuxuu ka soo dhismaba jaamacadeedii ay PhD-da ka sameynaysay hadda ka dhameynaysay ayaa kan aan arkay oo aan ku socdo berito oo furmaya khamiista ay taariikhdu inteeda tahay 14 iyo jimcaha oo 15 ka soconayo mawduucyo badan dadka dhowr qof oo kale waa ku arkaa oo Somali Studies-ka hore ugu jiray sida Lijuun oo ladan ah ama Ali Jimcaale Axmed ama Lii Kasalini professors-kaas waan saddexda professor waan magacooda liiska waa ku arkaa iyo laga yaabo kuwa kale oo aanan aqoon ama aanan xusuusan marka meeshaas ayaa jaamacadda Minnesota waan joogo ayaa ii soo jeedisay maadaama aan Soomaaliga halka ka dhigo African Studies-ka iyo ka tirsanahay in Somali Study-ga aan ka qayb galo oo halka iyo Harvard Cambridge Boston lagu qabanayo